baby iyo maxaa ku sheegaa suuraleyda ya suuraley allah usaatay suuroohaysa ayada hore aan noo suuroon annaga suurada naga dhaafi walaalay bar suurada sakaraata hiddeer camale salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh akhyaarta jaakooyinka waaweyn iyo kuwa fadhiyada yaryar leh waxaan idin leenahay duhurnimo wanaagsan halka aad naga daawanaysaan waa shaashada jaakooyina tv fadlan ka dhig wehelkaagii saaxiibkaaga oo janalka subscribe garay videogan like saar aad iyo aad aamintaas nagu mahadsan tahay wararka maanta ayaa waxay sheegayaan saddexaas la yaaban iyo qorsheeya ku saabsan diinka waaweyn facebook iyo whatsapp magacska qaadashada maanta iyo warar kaleento aad iyo aad u badan ku soo dhawow wararkii oo duuban saddexaas oo maseer weerweerinaya ayaa waxa ay u tageen oday ku taab gabdhow kadib markii ay isku dayeen inay qalqalgeliyaan xaaladda caafimaad ee odayga qaba kadib markii ay weer aad u ba'an ay qaadeen taasoo khasaaro markaasi lixaad leh ka soo gaartay odaygii ayaga qabay kadib markii ay hawada ka saareen signaalka anteenadiisa si kumeel gaara oh no dhanka kale sheekh rusheeye ayaa asigana dhankiisa fariin ugu diray alfanaan ilkacas kadib markii hees uu asiga soo qaaday kusoo lifaaqay magaciisa asigoo weliba baaq u jeediyey alfanaan ilkacas una sheegay inay digniin ay markaasi tahay fariintani haddii uu ka saari waayo magaca sheekh rusheeye heestaas asiga uu soo qaaday in uu ku dalbi doono 32 jinni oo waalan dhanka kaleento wararka naga soo gaaraya xagga dhafarka iyo facebook iyo whatsapp ayaa waxaa la sheegayaa in madaxweynaha hirig ee dalkaasi dhafar uu shaqo dheeraada ku bixiyey sida markaasi xal waara loogu gaari lahaa dhafarka ka jira baraha bulshada sida facebook iyo whatsapp-ka taasoo maamooyin badan cabasho markaasi ka dhan ah dhafarka ilmahooda iyo saameynta uu ku yeeshay isticmaalkaasi baraha bulshada waalidiintaasi ayaa waxa ay baaq fariineed u dirayaan in markaasi xal waara laga gaaro dhafarka ka taagan baraha bulshada sida facebook iyo whatsapp-ka halkaasoo micnaha ilmihii ayaga ay dhaleen ee markaasi aad uga adag tahay inay markaasi waaga xilli hore ay ka soo toosaan kadibna ay markaasi aadaan waxbarashadooda iyo shaqadooda iyo danahooda kaleento madaxweynahaasi ayaa waxa uu markaasi shaqo dheeraada ku bixiyey in uu markaasi close garayn doono aaladaha loo yaqaano facebook iyo whatsapp about time 6 habeenimo wixii ka dambeeya halkaasoo musuqmaasuq fara badan uu ka jiro taasoo dabab badan ay isugu dirayaan xumis iyo waxyaabo la mid ah midaasi oo ayadana markaasi dhankiisa uu ka sheegay in ay markaasi qalad tahay in markaasi ay sii isticmaalaan about time 6 habeenimo wixii ka dambeeya taasoo aysan awood u yeelan karin in ay subaxdii xilli hore soo toosaan ay aadaan waxbarashadoodii iyo howlihii guriga iyo howlihii kaleento oo bannaanka sababtoo ah waxa waaye nin dhafray maaha iyo soo kici kale yaa minaan idiin weydiiyey su-aashaas qof dhafray ee xali oo dhan abay macaani ku hayay iyo abuu macaanow ku haysay subaxdii ay abbaaya inay soo kacdaa warta cajeerba ka duwey waa baya hadduu alla kuuroo yahay oday wareeraya asigana subaxdii buugilow qaato iskuulaadaa laga rabaa waa siga jiifo iskuulkaa laga soo xirtay lahee haddana guriga hooska soo xirtaaye xaa soo jeediyey xilli dambe dhanka kaleeta ayadan waxaa waaye ay khadiijana waxaa laga rabay inay cajeerada warta u walaaqday iskuulkeedii iyo dareeda kaleeta qabsatee waa iyadoo ku adkaato soo kaceedho sariirta laga soo fujaya warta babis iyo xaaqinka daba wadatee dhiboo ka jira meeshaas facebook iyo whatsapp ubadayda ma yaa saddex waa laakiin iga sugi maysiin daa idin isticmaal halkaasna waxay ahayd baaqa markaasi oo idin soo dirayo walaalkiina jaanka weyne ee fadhiga magac iska qaadasho ayaantaa timid ayadana okay dhanka kale haddii aan ka hadalno magac iska qaadashada hablaha iyo sanadkan iyo weliba ragga waa ku jira
iblow ina boqortooyo aye king hebel ya iyo waxa ku sheega iyo imbembe iyo bakay igey iyo walaxay la soo qorooya ay atriishada caawaye suurita baby iyo waxa ku sheega isuurleyda ya suurley alla sidoo kale suuroohay bayada ore aan loo suuro anaga suurada naga dhaafay walaalay bar suuro daraa ku oge ka karata hideer cabale okay dadka kale dad suurleyda waa laga soo tagay edibsta sidii hooyada ku soo markaas beesh ku soo qoreysa iyo macnaha udgoos sidii hawarteed macnaha dhaxaqsan sidii hawarteed ore hawarta ma gaartide anaga loo sheegire qadiijo beet baa laga dhaafay walaalay bilaarada ku sheegro beet laga dhaaf hawarta ma gaartide hawarta adooga soo guursid waa gurigeeda joogtaa adigay ku dhashay ilbaas tare dhashay gurigeeda dhaqarooysaa adigana saddex sar guduudaa saddex waxa ku shaaburaysaa grobeeyay marka sida horta dad way dabsatay warsan sidii horteed ugu laa wallahi ina warta soo gaari wallahi runtaarta lagu sheegay odeybel kale tasoo qoraa iblow ina boqortooyo warya adigaaba labada kun waxa ku sheegay la ashaad balad ku socdo leeyahay boqortooyo boqortooyo ma gaarine balaayada iyo basiga geedaha ku wacbaa iska dhigade iyo dhibka ay falaadga laga madaaftiina والله بالله أنا قلت لنا الدين وجدتها والله أوكي دنقاس لأنها كلنتو مركزي عقبتها هي سامين تقول يا شيء مقع هذا شيء فيجع لو سوقت بروفيلك أي واحد لبنا الله ويل مركزي الدائر الدائريسا مركزي يقول شيء إن أجره سجال 8 سنة إذا مركي أوجع على هذا قبل الله سنيتا بيبي Soomaaliyada wadiga Soomaaliyeed oo qortay baby daas meesha laga dhigay Soomaaliyeed baby cunugaas jacayl baa ay ku abuurtaa soo waqti fardi 24 qolka ku xaran yahay abar canjeerada waa ka diiday minoo waa cuna daan laba darsan oo la qowhaya dadkaas adaa keentay walaalay Soomaaliyeed baby in wax laga qabto waa dadka kale inta wiilka ayaa asigana waxa uu sheegayaa in markaasi uu la ildaran yahay amba uu la taag daran yahay jacaylka uu qaaday gabadha Sunita baby kadib markii blog aan ka qaaday macna aan ka qaadis lahayn ay ka saartay aaladii ay ku wada jireen isagoo ismar ahaantaasna aanan helin wax telephone number uu kaga markaasi uu kala xiriiro iyo waqti xaadirkan meesha ay ku sugan tahay iyo deegaankeeda iyo halka ay ku nooshahay isagoo markaasi kula haasabi jiray dhankaas iyo baraha bulshada waqti badan markaas ay soo wada qaateen ayaa waxa cunugii markaas weerar baan ku soo qaaday kii jacayl ahaa kadib markii uu ka dhigay dhaadaan sariir saaran iyadoo ilaa hadda xaaladiisa ay tahay mid aad u khatar ah waxna markaas aan looga qaban ayaa waxa uu markaas ku qarwayaa in mar walba macnaha Sunita baby ay tahay noloshiisa Sunita baby oo ilaa hadda wax akhbaar laga helin ina istamar ahaantaasna la kulanka wiilka aan la kulmay oo ii sheegay in uu la ildaran yahay jacaylka uu qaaday Sunita baby kadib markii ay ka saaratay blog aan ka qaadasho lahayn wiilkaasi ayaa waxa ii saamix weysay in markaasi waraysi oo isiiyo sababtoo ah xanuun daran uu la ildaran yahay darteeda uusan u soo farfadhiisan karin baraha bulshada si uu markaasi fariin iyo baaq ugu jeediyo Sunita baby oo magac ku khaladay kadib markii ay saartay blog aan ka qaadis lahayn وفينا أبداً halkaasi waxa inooga eeg wararka Jaakoweyne TV fadlan ka dhigo wehelkaaga oo subscribe saar videogana like garee si uu u gaaro asxaabta faraha badan leh ee dunida daafeeda jooga fadlan haddii aadna daawanayso waa adigii ii jeedo fiirsaaye laakiin ilowin channelka inaad subscribe saarto videogana aad like saarto intaasni waa dardaaran oo idin soo jeedinayo walaalkiina Jaakoweyne intaan dib hawada ugu kulmi doono anagoo sidaan u fadhiyo xun fadhiyo ay dinay raakara loqda dhibayo fadhiyo cod diire walaalayga qaaliga diire ana anigoo jaakadiida wato intaan dib hawada ugu kulmi doono aan rabay bogtahay asa luq baash iga gashiday oo dhibaato baas ka timid intaan dib hawada ugu kulmi doono anigoo saan u jaakad weyn نولي كلانتي ضمبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله صومالي سبسكرايب
subscribe ka igu saacido yoga like saara oo asxaabta gaarsiiya Soomaaliyay subscribe ka igu deeqa yoga like saara oo asxaabadan gaarsiiya واو 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 والله بلا تلا يا كدوينا والله عندك دي براس والله اسك براجي دكاري هذيك صوت بوا يك هذا هذيك يقصي اوكي يا نقول لكم انتم باي باي